العلم والعقل نستعين وليحيى الإلحاد العظيم. soo dhawaada dhammaantiin asxaabta maanta waxaan jeclaystay inaan wax yar ka taabto falsafadda iyo ka shaqaysiinta caqliga. Hadda ka hor mawduuc waxaan soo qaadanay ka sheekeynaya falsafadda sida ay ku bilaabatay dadkii ugu cadcaddaa falsafadda doorkii ay ka qaateen. Marka waxaan soo niri falsafaddu waa jacaylka xigmadda, qof inuu jeclaado xigmad, inuu cilmi jeclaado, inuu wax raadiyo, inuu aqoon raadiyo weeyaan. Waxaan kaloo soo niri waxaa lagu gaaraa xigmaddaasi adiga oo caqliga ka shaqaysiiya. Waxaan kaloo soo aragnay qaabka caqliga looga shaqaysiinayo in qofku uu sidii aabihii falsafadda oo kale inuu qofku su'aalo isweydiiyo. Socrates ninkii la dhihi jiray wuxuu ahaa nin had iyo jeer jecel inuu su'aalo isweydiiyo. Dadka la yidhaahdo waxbay yaqaanaanna intuu u tago ayuu su'aalo weydiin jiray. Marka qaabka caqliga looga shaqaysiinayo waa inaad adiga su'aalo isweydiiso nafsad ahaantaada, iyo inaad dadka su'aalo weydiiso oo aad maskaxdaada ka shaqaysiiso. wixii aad garan weydana aad raadiso. Ma habboon inaad naftaada been u sheegto waxaadan aqoonin. dadka markaa fiiriso, haddaad aragto qof isqaadqaadaya oo iskibkibrinaya oo waxbaan aqaanaa dhahaya, qofkaasi waxba ma yaqaano, waa beenaale. had iyo jeer qofka cilmiga raadiya waa qof wax raadinaya, maalin kasta wax baranaya, su'aalo isweydiinaya, wixii uu yaqaano ka jawaabaya, wixii uusan aqoon u lahayna oranaya waxaas ma aqaano. marka waa calaamadaha lagu yaqaano dadka caqliga iyo xigmadda isticmaala. marka maanta waxaan eegaynaa oo keliya khaladaadka dhanka caqliga ah oo loo yaqaano logical fallacy-ga loo yaqaano. waa khaladaad dadku badanaa ay galaan, qaarkood kas ayay u galaan si ay qofka uga faa'iidaystaan ama dooda ugu guulaystaan. qaarkoodna ayagoon is ogeyn ayay galaan, maxaa yeelay maskaxdeennu had iyo jeer waxbay sawirataa, wayna adag tahay waxyaalaha qaar inaad garato oo isla markiiba fahanto. waana tan lagu garto had iyo jeer qofka xigmadda leh. shay kuma degdego markii su'aal la weydiiyo ama wax la weydiiyo, kuma degdego. had iyo jeer wuu ka fiirsadaa, si fiican buu u baaraa, wixii uu yaqaano oo keliyuu ka jawaabaa. marka waa khaladaad caam ah oo dadku ay wada galaan. marka maanta waxaan soo qaadan doonaa oo keliya 6 ka mid ah kuwa ugu waaweyn, taasoo kaa caawin doonto inaad dadka familigaaga ah, dadka saaxiibada ah, dadka qoyskaaga ah aad u gaarsiiso iftiinka nolosha iyo maanfurka. waxay kaloo kaa caawin doontaa inaad fahanto khaladaadkan inaysan qof kaa faa'iidaysanin, been kuu sheegin, maskaxdaada uusan khaldin, wax beenan uusan kaa dhaadhacsiinin. waxaad noqonaysaa qof had iyo jeer feejigan oo aanan been loo sheegi karin ayaad noqonaysaa. marka tan koowaad waa tan la yidhaahdo circular reasoning ama sababeynta isdaba wareega ah ayaa la yidhaahdaa. waa qof maanta dhan wareegaalaysanaya. su'aal baad weydiinaysaa, intii uu ku odhan lahaa ama kuu jawaabi lahaa ama ku odhan lahaa ma aqaano, kuma odhanaya, maanta dhan wuu isdaba wareegaalaysanayaa. marka waa tan la yidhaahdo sababeynta isdaba wareega ah. waxaa kaloo jira khaladka labaad ee dadku badanaa u badan yihiin, inay tahay beer jilacsi. qof baad su'aal weydiinaysaa, intuu jawaab ku siin lahaa wuxuu kuu gelayaa beer jilacsi. warniyahow waad qurux badan tahay, warniyahow waad fool xun tahay, waxyaalo kaluu gelayaaba. beer jilacsi buu kula gelayaa. marka taasna waa la iska ilaaliyaa had iyo jeer. waxaa jira wax la yidhaahdo qiiq isku qaris. qofka wixii aad u dirsatay mee wax kale kula aadaya.
shakhsi weerar baa jirta, qof adigaba ku caynaya markaasba intuu su'aal jawaab ku siin lahaa adigii buu kusoo weerarayaaba. waxaa jirta mid la yidhaahdo hayiraac oo dadku u badan yihiin, waa tan soomaalida ay yidhaahdaan haddii meel il laga la'aya haddaad tagto ishaa la istiraa. run ahaantii waa khalad dhanka caqliga ah weeyaan, ma wanaagsana. dad badan oo khaldan haddaad aragto inaad iska raacdo waa laga wanaagsan yahay. ta u dambeysana waa midda la yidhahdo appeal to authority, in qof magac leh ama mas-uula waxa uu yidhaahday aad iska liqdo oo aad iska qaadato adigoona iska baadhin. iyadana waa khalad dadku ay aad u galaan. marka fahanka khaladaadkan waxay kaa caawinaysaa adiga in doodaadii iyo dadkii aad rabtay inaad wax ka dhaadhacsiiso oo aad iftiinka nolosha iyo maanfurka aad gaadhsiiso, haddii khalad ka mid ah khaladadan aad gasho, qofkii iyo doodaadii way burburaysaa. waxaad noqonaysaa qof iska maalayacni aad noqonaysaa. marka waxay kaa dhisaysaa in doodaha markaad qofka la galayso oo aad wax u sheegayso inaad ka fogaato kuwaan oo aad wax fiican oo qofku qaadan karaayo aad u sheegto, sababo wanaagsan aad u sheegto. waxay kaloo kaa caawinaysaa inaanan lagaa faa'iidaysanin oo aan been lagu sheegin oo aan maskaxdaada la khaldin. marka aad iyo aad ayay muhiim u tahay inaad fahanto khaladaadka dhanka caqliga ah ay dadku galaan. haddaan ku horreysiiyo sababeynta isdaba wareega ah, waa qofkii oo isla doodii uu waday raba inuu kaaga dhigo caddayntii. waxbaad weydiinaysaa, waxba kuuma keenayo, maanta dhan wuu wareegaalaysanayaa. tusaale haddaan ku siiyo, qof muslimaad ku odhanaya waxaan hayaa ilaahay baan caddayn u hayaa, allah inuu jiraan caddayn u hayaa. haye caddaynta itus. wuxuu ku akrinayaa qul huwa allahu axad allahu samad ayuu ku leeyahay. war waxaas caddayn ma aha. buuggii adiga aa qoratay caddayn kama dhigi karaysid. waa inaad la imaato caddayn cilmiyan ah ama caqliyan ah oo ka madax bannaan waxa aad doodaadu ay tahay. waa inaad la imaato. marka badanaa dadku way galaan khaladkaas. waxaana habboon qofku marka uu intuu ku daalin lahaa waktigaaga, waa muhiim, waktigaan uu kaa khasaarin lahaa, markaad aragto qofkii oo isdaba wareegaalaysanaya inaad joojiso oo tiraahdo warniyahow u kaadi, aniga saas kuma weydiin, saasaan ku weydiiyey, caddayn ma ii haysaa? haddii kale niyo nugu kala gee, waktigu waa qaali. haddii qof adiga su-aal ku weydiiyo aadan garanaynin ma wanaagsana. weligaa ka fogow daba wareegaalaysiga, ka fogow weligaa. haddii uu su-aal ku weydiiyo ma aqaano, ceeb ma aha. maanfurku ma aqaano waa shayga ugu wanaagsan weeyaan. macnaheedu waxaa weeyaan waxbaad haysataa maanta aad baarayso. maalintii aad waxba ma aqaano tidhaahdo waa lagu yaabaa, maxaa yeelay wax aad baadho maalintaas ma haysatid. soo haddii qof familigaaga ah, asxaabtaada, su-aal adag oodan garanaynin ay ku weydiiyaan, meel ku qoro, ma aqaano, waan kuu soo baarayaa, waan kuu soo raadinayaa. inaad saas ku gaabsataa ka habboon. laakiin haddaad bilaawdo isdaba wareegaalaysi, waxaad noqonaysaa qof maalayacni ah. ta labaad waa tan la yidhaahdo appeal to emotion, qofkii oo beerjilecsi kaa raadiya. su-aashii aa weydiisay kaagama jawaabayo, wuxuu gelayaa beerjilecsi. wuxuu rabaa inuu kaaga sheekeeyo aakhiro, cadaabta markii la tago, yaa malaa'ig baa soo istaagaysa silsilado wadato, markaasay xirxirayaan dadkii, markaasay jiidayaan, markaasay cadaabta mid mid ugu tuurayaan. intaas waxaa weeyaan wuxuu rabaa inuu beerjilecsi inuu kaa raadiyo. marka qofkaasoo kale waa inaad joojiso tirahdo war u kaadiniyaho, aakhiro iyo waxaan adiga maa soo arkay? waa maya. ma qof soo arkaad noo haysaa oo video baa noo daari kartaa? waa maya. halkaa ku jooji saaxiib. waxa aan naqaano aan ka sheekaysano. su-aal baan ku weydiiyey, aakhiro iyo howlahan iyo yaa cadaabkan iyo dabkan iyo waxaas dib noogu dhig. adna maadan soo arkin, qof soo arkayna maadan arkin. yaa waxyaalaha emotionka ah dib noogu dhig inaad tiraahda habboon. marka waktigaagaa kuu badbaadaya. qofka kalena waxaad tusaysaa inuu khaldan yahay, wuu isgaranayaa. islamarkaana qofkaasaa laga yaabaaba in maanfurka uu gaaro laftarkiisa, uu su-aalo isweydiiyo, uu yirahdo niyo waxaan aad ka sheekaynayso waa maxay?
marka waa hab wanaagsan oo u habboon tahay inaad fahanto qofka su-aashaa weydiisay yuusan waxyaalo kale yuuna ku mashquulin. ta saddexaad waa tii la yidhaahdo board isku qaris qof baad wax weydiinaysaa, jawaab intuu ku siin lahaa qofkaasi wax kale oo u dirsanin buu kuu sameynayaa, markaasuu weerarayaa wixii. tusaale ahaan waxbaad ka doodayseen wuxuu kula soo gelayaa dadka gaalada ah waa qurun, maxay aheeday gaaladu hooyooyinkood inay u tagaan bay rabaan, khamriday cabaan, waxyaala noocaasa oon meesha oolinba doodi ahayn ayuu intuu keeno ayuu rabaa inuu wixii uu weeraro. say u galeen gaalada fiiri, ciraaq say u galeen fiiri. hadda muslimiinta oo kale markaad tiraahdo nebiga dad buu layn jiray, markaad tiraahdo waxay kuula gelayaan fiiri maraykanku ciraaq su u gelaayo, ciraaq buu laayay, dadkii buu dabada ka fuulay. waxaas yaa ku dirsaday? ani su-aal kale iyo doodeeni meel kale ahayd. marka tanna waxaa la yidhaahdaa dooda boodh isku qariska. markaad aragto qofkii wax aadan odhaninba asagii oo intuu meesha keeno isku dayaayo wixii inuu weeraro, waa inaad joojiso tiraa war niyo u kaadi, joog niyo ka joog waa inaad tiraahdo. tan afraad waa khaladka la yidhaahdo ad hominem, waa adiga oo qofka weerara. way u badan yihiin dadka muslimiinta ah. gaaladu waa qurun, hooyooyinkiin midaad u tagtaan, dabadaad iska fuushaan, khamriya cabyiin baa tihiin, waxyaalada qurun ah ayay gelayaan. war waxaas iska dhaaf, hawshaas aniga ha igu mashquulini yahow, doodeennii iyo hadalkeennii aan ka sheekaysano ku kari maysid. marka adigana ka fogow qofka inaad si toosa u weerarto. haddii uu dood keeno inaad wahaabi baa tahay iyo al-shabaab baa tahay iyo gardheer baa leedahay iyo caday baa wadataa iyo shaksiyanka ha ku mashquulin. muhiimadda waxay tahay dooda uu keenay ka hadal, asagana saasoo kale waqti badan baa idii badbaadaya, lagaamana faa'iidaysanayo. tan shanaad waxaa weeyaan ta la yidhaahdo hayraac, waa adigoo iska rumeeya wax. maxaa yeelay dad badan baa iska rumeeya, waa adigoo yidhahdo sunni muslim baan ahay. maxaa yeelay muslimiinta 90% waa sunni. 90% muslimiinta waa sunni darteed kama dhigayso in sunnigu uu sax yahay, shiicaduna ay been tahay, kama dhigayso. so adiga shaksiyan markaa weynaato caqli yeeto, waxa kuu taallaa waxay tahay inaad wixii iska baadho adiga, oo aad shiicada buugtooda gasho, sunniyiinta buugtooda akhriso, kadib su-aale weydiiso ayaga, qolyihii jawaabo fiican ku siiya aad raacda markaas. laakiin adiga waa lagugu soo koriyey, asxaabtooda dhan baa wada sunni ah darteed iska noqo, waa laga fiican yahay. waa khalad dadku ay badanaa galaan weyaan. adduunkaana hadda muddo 2,000 sano ah ayaa khalad uu sameeyey aristotle ayaa 2,000 sano iska socday, cid su-aal isweydiin jirta ma jirto. aristotle ayaa hadda ka hor wuxuu yidhi haddii laba shay oo kala cuf duwan aad meel kasoo tuurto, kan cufka weyn ayaa hor dhacaya, ayuu 2,000 sano ka hor yidhi. dadkoo dhan run bay u qaateen. marka cid su-aal ka weydiisay maba jirto, maadaama aristotle uu yidhi, nin caano uu ahaa, nin khatara uu ahaa, qof walba uu iska qaatay. ilaa nin talyaani ah oo galileo la yidhaahdo oo wixii tijaabiyey, intuu Roma meel dabaqa fuulay ayuu labadoodii soo tuuray, wuxuu arkay labadoodii inay isku mar dhacayaan, halkaasayna ku beenowday. marka doodaas ama khaladkaas caqliyanka ah in shay maadaama uu qof dad badan ay haystaan ay yidhaahdaan darteed inaysan u noqonaynin sax u noqonaynin. dadka badanaa adduunka maanta jooga mar badanaa muddo badan waxay aaminsanaan jireen in dhulku uu fidsan yahay, qoraxdan ay dhulka ku wareegto. marka wax badan baa dadku raacsan yihiin, kama dhigayso waxaas waa sax. adiga waxaa lagaaga baahan yahay inaad wixii baadho, wixii haddaa ku qanacdo okay waay. marka laakiin haddaa ku qanci weydo dadka iska raac, waa laga fiican yahay. tan u dambeysa waa tan la yidhaahdo appeal to authority. qof baa yidhi darteed inaad iskaga qaadato waa laga fiican yahay.
sheekh umal baa yiri sheekh shibil baa yiri haddaad iska aaminto wixii ha ku qancin hebel baa yiri ha ku qancin dadku waxaan ognahay inay been sheegaan dadku inay khayaamo badan yihiin marka weliga allaha qof baa saa yiri darteed ya bukhaari baa yiri wayna u badan yihiin hadda dadka muslimiinta su'aal baad weydiinaysaa ibnu taymiya saa yiri bukhaari baa saa yiri ma noqonayso dood ma noqonayso waxaas waa inaad dood fiican oo caqligeena aad meesha la imaato hebel baa yiri dood ma aha gunaanadkeena waa maxay waxaa habboon inaad ka fogaato khaladaadkan intaad fahanto inaad ka fogaato ka fogaanshahaasna waxay kaa caawinaysaa in adigii hadalkaagii iyo doodaadii ay noqoto mid midho dhal ah oo aad qoysaskaagii aabbaha hooyooyinka saaxiibada aad su'aalaha ay ku weydiiyaan aad si saafiya intaad uga jawaabto ayaguna ay gaadho maanfurku uu gaadho oo dadkii familigaagii ahaa ay ku soo raacaan ay doodaadii ay dood midho dhala noqoto ayay keenaysaa waxay kaloo keenaysaa in adiga aan lagaa faa'iidaysanin tusaale ahaan qof baa wada doodayseen wuxuu kula gelayaa emotion iyo inuu beerjileecsi yaa soo hooyadaa muslim ma ahayn jirin aabbaha soo muslim ahayn nin sheekhaa ku dhalay maxaa gaalnimadan waa maxay beerjileecsi buu kula gelayaa marka waa inaad qofka tiraahdo waxaas gadaal noogu dhig laakiin doodeenna iyo waxeena aan ka sheekaysano waxaa kaloo habboon wixii aad fahmi weydo qofka waa laga codsadaa markaaba laguma degdego waxaa la yiraahdaa igu soo celi wixii inaan fahma ma fahmin ceeb ma aha yaa waqti fiicanaa la qaataa tartiib wixii inaad fahanto isku day wixii haddaad taqaanan uga jawaab haddii aadan aqoonina ma aqaano dheh waa tan ugu wanaagsan weeyaan ma aqaano sideedaba maanfurku ceeb kama aha waa shayga ugu wanaagsan weeyaan waxaa kaloo habboon inaad ka fogaato in lagu dadajiyo oo lagu qasbo yaa weliga allaha ka fogow waxaad tidhaahdaa anigu waan kasoo fakarayaa wax aadan garanayn markaas haddii qofku intuu kuula imaado waxaa laga yaabaa inuu caqligaaga khiyaamayo uu rabo inuu kaa faa'iidaysto waxaa la yidhaahdaa okay meel baa lagu qortaa waan soo baarayaa dib noogu dhig ayaa la yidhaahdaa si fiican inaad uga fiirsato wixii khaladaadkii dib uga fakirto qof degan oo aanad degdegaynin inaad noqoto waa shayga ugu wanaagsan waa waxyaabaha lagu garto dadka caqliga leh dadka xigmadda leh dadka wax baara qof degdegaya haddaad aragto oo raba inuu ku boobsiiyo raba waa qof doonaya inuu kaa faa'iidaysto marka aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iidi doontaan aadna gaadhsiin doontaan dadka asxaabtiina ah fikirka iftiinka nolosha iyo maanfurka waa mahadsantihiin dhammaan صدق العلم وكذب المتدين